ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال كسر دوال داعي الشو فنان رياكو أركي جيرديسي رامي رياضة رياضه سيسي maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa qiso aad iyo aad cajiib u ah iyo qiso aad arki doontaan in lagu qabtay kaamirada iyada oo dhab looga sheekeynayo fanaan la tusiyay geeridiisii raami riyada riya uga hooseysay tan waa fariin ku socota fanaaniinta Soomaaliyeed waa qiso cajiib ah oo cibro qaadasho mudan iyo riyo u fasirantay sidii waa bariyay wiil ku riyooday geeridiisii taas oo kaamiro lagu duubay markii uu ka waramayay ama live recorded ah waana mid fariinta ay xambaarsan tahay wacdi iyo waano ugu filan qofkii alla waafajiyo si aan u fahamno xaqiiqada waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo waxa ay tahay heestu qaybaheeda kala duwan qisadan oo qabsatay fanaan ama heesaa reer Lubnaan ah waxaan ka hormarinayaa baalla gaaban waa maxay heestu waa tixda ama maansada oo lagu luqeeyo codkana lagu qurxiyo markii sidaasi guud loo fasirana wax dhibaato ah ma leh heestu waxayse u qaybsantaa dhowr nooc kow hees hawleed laba hees wadani ah saddex iyo hees jacayl ama qaraami heesta jacayl ayaa saamidan goonida ugu jeedo ee ma aha kuwa kale idil heesta jacaylna waxaan jeclahay dadka qaado iyo muusikaaleyda iyo kuwa matalo dhammaan in aan fariintan iyo faaladan u gudbiyo qisada soo socotana waxay qabsatay mid ka mid ah dadka qaada heesaha jacayl hees jacayl xubbi qaraam ama love song waxay ku xiran tahay had iyo jeer ereyga jacayl ama love ereygan oo markii English ahaan la rogrogo oo macnihiisu ka mid yahay sexual intercourse galmo ama isu tag toos ah markii dhinacaas loo tarjumana waxay noqonaysaa hees galmo ah waxaana ku sii cadeynaya heesaha jacaylku waxay u taagan yihiin in ay dareenka shahwada kiciyaan sidaas awgeed heesta jacayl haddii dhowr waxyaabood mid laga waayo dhadhan ma yeelato kow miraha heestu waa in lagu daraa wax ka warramayo xubnaha taranka ama sawir lagu muujiyo isu tag iyo jawi u suubado laba qofka ama labada matalayaana waxay banneeyaan ruuxba halka uu u qurux badan yahay tiyo lagu daray isruxid iyo taataabashooyin aan habboonayn saddex qalab muusik makaan iyo jawi aad u kacsan shuruudahan oo ah kuwa ugu muhiimsan heesta jacayl ee aan buuxin laguma daro heesaha hirgalay qofkii lahaana ma noqdo xidig ama star caan baxay raami oo ahaa wiil yar oo Lubnaaniisa dhowr iyo 20 jirna ku dhintay 2010kii qisadiisii ayaan jeclahay haddana in aan halkaan ka guda galo raami riyada riya uga hooseysay raami waxa uu ahaa wiil 20 iyo qadar jiro markii uu ku guuleystay naanaysta ah xidiga Lubnaan wuxuuna yeeshay oo helay fame iyo fortune caanimo iyo calafba labada waxyaalood ee aadka ugu weyn kuwa alle iyo aakhiro ishilmaansiiyay wuxuu ka dhashay qoys Kristaan ah oo reer Lubnaan ah laakiin si aan kala duwanaansho lahayn ayuu muuqiisa iyo maqalkiisaba ku hantay dhalintii iyo shaaricii Carbeedba hayeeshee riyooyinkiisii u rumoobay riyo kale ayaa uga hooseysay taasoo asaga iyo ilaah uun xaqiiqadeeda ay ogaayeen wiilkii yaraa murugadan ayuu hayn kari waayay oo ku talagalay bal inuu mar uun iska soo bandhigo macallinkiisii ayuuna la wadaagayaa ardaydii asxaabtiisa ahaydna hareerihiisa ayay joogaan rag iyo dumarba ayaga oo la yaaban waxa raami ku dhacay عندي حلم بحلم وانا صغير من فتره لفتره بيروح وبيرجع فهالحلم على طول بكون في محل سهران او محل مع اصحابي بالبيت سهرانين وهيك وبعدين بشوف حالي بلاقي حالي بسياره او سياره او اتيفي يعني مش انا سايق بس انا مع الشخص اللي سايق
ilaa yaraantiisii ayay ku soo noqonaysay oo hadba mar ku riyoonayay taas oo murugo iyo walwal qalbigiisa ka buuxisay maalin maalmaha ka mid ah ayuu goostay inuu soo bandhigo walwalka iyo cabsida qalbigiisa buuxiyey taas oo ay riyooyinka isdaba joogga ah ku hayaan talow riyadu waa noocee yuusa u bandhigay أو سيارة أو أتيجي يعني مش أنا سايق بس أنا مع الشخص اللي سايق ويكون في عطول عتمة على الطريق في سيارات جايين هيك ما في سيارات رايحين هيك وبعدين بحس حالي نازل هيك في محل كل مرة جيت الحلم بوقع عن إذان بوقع هيك عم بلبط بإجري على التخت هذا الحلم يعني حتى هون صار غير حلمته مرة goobtu waa meel kaamirooyin badan ay ka shidan yihiin waxa goob joog ah ardaydii saaxiibadiis ahayd iyo macallinkii tababarka siinayay waxa uu uga warramay waxa uu ku riyoodo in badanna ku soo noqnoqday teer iyo yaraantiisii kaamirooyinkuna way duubmayaan heestii loo diray ayuu oohin ku kala gooyey macallinkii ayaa weydiiyey wuxuuna ku jawaabay riyo aan iga harin ilaa intaan yaraa aan arki jiray haddana wax yar ka hor aan soo arkay macallinkii baa weydiiyey oo yiri maxaad aragtaa raami wuxuu yiri sidii waxaan arkayaa xilli habeen ah inaan caways ku soo daahnay qof aan u malaynayo inuu saaxiibka yahay ayaan gaari soo wada qaadanay isaga wado anigana dhanka kale ayaan fadhiyaa meel buundo ama bridge ayaan fuulnay oo ka soo hoobanay mise si degdeg ah ayuu gaarigii kontaroolkii ku lumiyay markaas ayaan galnay dhinacii kale ee wadada ee baabuurta kale ee naga hor imaanaya ku socdeen shil ayaa dhacay muraayadii ayaana igu soo duldaadatay لأنه أنا على طول عندي خوف من المستقبل ومن كل شيء بالحياة. ليه؟ إنه بجرب على طول قد ما فيه يكون يعني أحمل مسؤولية وخاف من شيء بخاف ما يصير معي شيء وكون أنا عم بطمح لشيء ويصير العكس. albaab madow in la ii sii wado ayaan moodaa mana garanayo meel aan aadayo waxaan soo kacay anigoo gariirayo macallinkii ayaa canaantay oo yiri ma cabsanaysaa wuxuuna uga dhigay xanuun nafsi ah ama buufis waxa yaab leh macallinka inuu isaguba ka warqabin waxa uu ku hadlayo waxaana inay yihiin xaq rabbaani oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiisa laga wacdinayo qofka kan inuusan ogeyn خيفين عم بوشط ما بعرف لوين اقوى خيفين عم بوشط ما بعرف لوين اقوى خيفين عم بوشط ما بعرف لوين دفي ربيعي بشمس جديد wuxuuna faray inuu is adkeeyo hees ayuuna ku amray inuu qaado markuu isku dayayna oohin ayuu ka sii qaaday شو بتعني لك الغنية كلماتها عم تشتاق تضلك طفل بلا هموم hayeeshee markay u dhammaystirantay riyadiisii adduun ee uu caan baxay ayuu muddo yar kadib ka safray lubnaan si uu u gaaro qaahira wuxuuna ku degay fannaan kale oo reer masar ah raami waxa uu ku dambeeyey riyadii sida uu u arki jiray in ay u dhacdo oo uu ku geeriyoodo magaalada qaahira gudaheeda isaga oo habeenkii oo idil soo jeeday habeen oo dhan haddii la caweynayay ayay gaari soo qaateen markii ay ka dhaadhaceen buundada ama bridge-ka 6 Oktoobar ee bartamaha qaahira ayay sidii uu riyada ku arki jiray raami xaqiiqadii ugu timid halkaas ayuuna ku geeriyooday raami shimaali maydkiisii oo nacash saaranna dalkiisii lubnaan ayaa dib loogu soo celiyey كل صوره التي ارتفعت على العواميد وفي كل زاوية فرامي الذي عاد مساء الجمعة من القاهرة حيث قضى بحادث سير مروع فيما كان برفقة زميله المصري محمود شكري أمضى ليلته في براد مستشفى سان جورج. ولا ليال تنوحي أهيد فرين خاص أو الله سبحانه وتعالى أصدري رامي إنه كوانا قاطع أنت أسنجيريون لكن waxay si guud u khusaysaa in alla intii falka noocaana yahawshan ka shaqayso waxaana leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala u noqda fanaaniinta iyo dadka fanka ku jiro wixii ilaahay idin siiyay ee awood ah ama xikmad ah ama shicir ah ama waxyaabaha wanaagsan ah aad uga faa'iideysaan diinta ilaahay wabtaghi fiima aataaka Allahu daaral aakhirata wala tansa nasiibaka min ad-dunya يسأل قلن ومد من إذنك بريت إذن سراعته أو قيامها إذن صاد بقشه كوان ويكون اللي بريت إن يسأل إذن دهن أبوه إسكفكر خاص أحال أدينا كل هذا ليا فانك كجيرو هبل يهبلاوي أدينا كل هذا ليا وحن كل هاي إلهي أنقو إلهي كحشو كبق الله سبحانه وتعالى أنت آذن غيري من كهر وحن إذن تسيي وواحد عي
waa dhacdo xaqiiqo ah ood wada arkaysaan waxa ay ku dhacdayna waa qof idinkoo kala ahaa qalbi idin jecel fariin ka timid ayaan idin wadaa kaas oo jeclaan lahaa inaad ummadda wanaag u horkacdaan dembina aadna ka kasbanin ummadda kaas oo aad aakhiro naarta kula dhacdaan walaalayaal barnaamijka daaci show waa mid u taagan inuu khayrka ummadda la wadaago waxaan idin leenahay ka qayb qaata like saara page-keena facebooka youtube-kana subscribe dhaha daaci s wallahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين